nolosha xayawaanaadka. Dhulka dushiisa waxaa ku nool tiro aad u badan oo ah xayawaano, shimbiro, xamaarato iyo cayayaan aad u fara badan. In ay ku tiro bataan dhulka dushiisa waxaa saameyn ku leh deegaan dhireedka ay ku nool yihiin, taasoo ka caawinayso in ay noolaadaan ayna tiro bataan. Waxyaabaha saameynta ku leh in xayawaanaadka ay ku bataan dhulka dushiisa waxaa ka mid ah cimilada, dhirta dabiiciga ah, dhulka taaga ah, xiriirka ka dhexeeya dhirta iyo xayawaanaadka dhulka dushiisa. Dhirta dabiiciga ah saameyn ayay ku leedahay nolosha xayawaanaadka, waayo xayawaanaadka ayaa cunto ka dhigta qaab toos ah, sida xayawaanaadka ku nool cawska, ama qaab aan toos ahayn sida xayawaanaadka ugaarsada oo ku nool xayawaanaadka cawska cuna hilibkooda. Deegaan walba oo ka mid ah deegaan dhireedyada wuxuu leeyahay xayawaano gaar ah kuwaasoo leh tilmaamo gaar ah, waxaana ka mid ah xayawaanadaas tusaalooyinkooda kuwaas oo ku nool deegaan dhireedyada: deegaanada dhulbaraha, yaxaaska, daanyeerka, raha, deegaanada kulaalada, maroodiga, libaaxa, deerada, deegaanada saxaraha, geela, yeyda, dawacada, deegaanada badda dhexe ama Mediterranean Sea, waraabaha, deerada, bakaylaha, deegaanada cirifyada, madax kuti, dawacada cirifka, shimbirka barafka ku nool. Dhibaatooyinka deegaanka waxaa ka mid ah deegaanada qaar waxay la kulmaan dhibaatooyin deegaaneed kuwaasoo saameyn xun ku leh. Dhibaatooyinkaasna waxaa loo qaybin karaa laba qaybood. Nooca koowaad, waxyaabaha dabiiciga ah oo ay ka mid yihiin duruufaha cimilada, tusaale ahaan dhulka oo qalala roob yari darteeda. Dabayluhu waxa ay sidaan oo carro ah kuwaasoo daboolaya deegaano kale.
dabaylaha aadka u daran ee badda kuwaasoo ku soo rogmanaya dhulka qalalan. 2 khatarada sida fatahaadaha. Gubashada ay sababto biriqda. النوع الثاني العوامل البشرية، ومنها midda koowaad daaqsiinta gabadfalka ah. midda labaad dhirta in la jaro sababa jira awgood منها oo الاحتقان. ay ka mid tahay gebi ahaanba in la zuuliyo. midda saddexaad ugaarsiga gabadfalka ah. midda afaraad wasaqowga oo ay ka mid tahay dhulka in la wasaqeeyo sababa ay ka mid yihiin waxyaabaha wasaqda iyo qashinka in lagu soo tuuro. biyuhu inay wasaqoowaan sida biyaha webiyada oo ku wasaqooba waxyaabaha qashinka iyo guryaha laga soo isticmaalay oo lagu soo tuuro. labadan arrin waxaa ka dhalan karta saameyn xun oo ay ku yeelato nolosha dhirta iyo xayawaanaadka, taasoo sababi karta in dhirta ay quud soo saari waayaan iyo xayawaanaadka inay hijroodaan. sidaas darteeda qof walbo bini'aadan ah waxaa saaran mas'uuliyad taa oo matalaysa in uu ogaado waxyaabaha khatarta ah ee dhibaya deegaanka, in uu ilaaliyo deegaanka ku hareeraysan.